مصطفى waxyaabaha markuu imaado dadka la soo dhaxgalay waxa kamid ah taa ka dhul ah kama tanaasuleyno balse maanta waxaad moodaa taa ka iska daayay taakooyin ka badan ama kiiloomitir in la qaadanayo iyo cabdi ilay oo lahayn damiir iyo dadnimo Soomaaliyeed wax lagu difaaco ogeyda ninkii waxa weeye waxa ogeyd sameynaya qudunka strategically marka waa qorshe deegaanka Soomaaliyeed uu go'doon uu ku jiro beeshaydu waxa kamid tahay beelaha ugu sir badan deegaanka ma kala fiiriyo oo macal madaxweynaha wixii dhan isku soo dar haddana waxay noo qabtaan oo yaani maanta leenahay waxaas fuliyaan ma jirto waxa dhaanta marka iyadoo beelaha Soomaaliyeed xuduudaha degan la gaarsiiyo adeega dawladeed matalaadin ayaga la siiyo sifay u arkaan inay ka yihiin stakeholders deegaanka Soomaalida taasoo ku muujinayso oromadu inay wali sii socoto kuna sii siqayso dhul badan oo deegaanka Soomaalida kamid ah in la doonayo in la qaato marka qorshahan waxaad moodaa laga bilaabo magaalada Jigjiga ilaa galbeedka gobolka City dhulkaas strategically in la doonayo in laga jaro deegaanka Soomaalida lana hoos geeyo dawlad deegaanka Oromia soo dhawaada saaxiibayaal maxaa ka cusub Ethiopia gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga meel u jirta 20 kiiloomitir ayaa qoomiyadda Oromada waxa ay ka sameysteen biyo xireen dhawaanahana waxa ay wadeen dhul balaarsi waxa stuudiyaha martiga isla markaana ila jooga wariye Sayid Faahiye oo inta badan ka faalooda arimaha geeska Afrika Sayid Faahiye soo dhawow bal arinkan baraha bulshada aad ay u qabsaday in qoomiyadda Oromada ay dabcan magaalada Jigjiga meel u jirto 20 kiiloomitir ay ka sameynaysanayso biyo xireen runtii mashruuc ku kacaya lacag aad iyo aad u badan oo qiyaastii lagu qiyaasay 400 milyan baashad bad ma santahay bulshada Soomaaliyeedna meel walba joogan waan salaameynaa waayihii u dambeeyay deegaanka Soomaalida wuxuu ahaa mid khatar iskaga sugan oo qoomiyadaha kala duwan ee dalka Ethiopia ay ku wadaan bob waxaana si gaar ah loo xasuustaa in dhul Soomaaliyeed oo ilaa 3 tuulo gaadhayay iyo dhul aad u fara badan ba in ay qoomiyadda canfarta ku soo duushay dagaal ku qaaday shacab ku leysay ciidamo ku leysay qabsatay ilaa maantana halkeeda la leeyahay sidoo kale waxa la xasuustaa in shacabka Soomaaliyeed 2018 laga soo qaxiyay deegaanka Jinicsani halkaas oo ay ka ganacsan jireen hantidoodii iyo wixii yaalay oo dhanna laga soo barakiciyo maanta qolooji ay ku yihiin qaxooti ku yihiin waxa kale oo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed way u dambeysay ku baraarugsanayd in dhul badan oo deegaanka Soomaalida la galiyay khariirada dawlad deegaanka Oromia waxa kale oo Soomaalidu ay ku baraarugsanayd in magaalada Mooyaale Oromadu ay sheeganayso isbuucan marka laba dhacdo waaweyn oo lama filaan ayaa ka dhacay duleedka magaalada Jigjiga waa mid koobaad deegaanka Baabili gaar ahaan dhanka inta u dhaxaysa Baabili iyo Dhagaxle qoomiyadda Oromadu maalin dhaweyd waxay imaatay iyadoo wadato ciidankeedii wasaaradda dalxiiska iyo sidoo kale mid ka mid ah xubnaha wasaaradaha federaalka waxayna halkaas ka taageen calanka Oromada iyagoo sidoo kale sida la sheegay dadkii shacabka ay aaga ku dhaqana u sheegay in dhulkan ka guuraan arintaas waxa follow up ku ahayd oo daba socotay maalintii shalay ahayd madaxweynaha dawlad deegaanka Oromia Shamilaas Cabdiisa waxa uu imaaday dooxada marar ee ay ku taalo magaalada Jigjiga ee duleedka Tulli Guuleed deegaankaas waxa laga hirgeliyay biyo xidheen weyn ama dhaam waxa afka qalaad lagu yiraahdo oo ay ku kacayso 400 milyan oo birta Ethiopia xilligii uu taagnaa murankaasi wasiirka dooxooyinka iyo waraabka iyo sidoo kale madaxa arrimaha xisbiga dawlad deegaanka Soomaaliyeed Maxamed Shaale waxa ay sheegeen in arintan uu khilaaf ka taagan yahay sida daraadad loo baahan yahay in maamulka Oromada iyo maamulka Soomaalida arintan ay ka wada tashadaan baaritaan lagu sameeyo kadibna hadii ay noqoto in mashruucan la hirgeliyo ay labada deegaan iskaashan ay hirgeliyaan balse deegaanka Oromadu uu hirgelin maadaama ay ku taalo gudaha dawlad deegaanka Soomaalida arintii qoladan Soomaalida way u aamuseen Oromaduna shaqadeedii wadatay maanta waxa lagu baraarugay xilli madaxweynaha dawlad deegaanka Oromia Shamilaas Cabdiisa uu imaaday dooxada marar isaga oo mashruuci noocaas ah oo complete ah waxa way xarig jaray sidoo kale isla shalay wuxuu sameeyay madaxweynuhu jid isku xidhaayo deegaanka ama degmada Jinicsani oo horaan Soomaalidu ay lahayd balse hadda Oromia hoos tagto iyo sidoo kale degmada Makanisa oo la sameeyay 2013 lagana sameeyay magaalada Jigjiga gaar ahaan marka xagga looga baxay dhinaca u barre taasoo ku muujinayso Oromadu inay wali sii socoto kuna sii siqayso dhul badan oo deegaanka Soomaalida kamid ah in la doonayo in la qaato marka qorshahan waxaad moodaa laga bilaabo magaalada Jigjiga ilaa galbeedka gobolka City dhulkaas strategically in la doonayo in laga jaro deegaanka Soomaalida lana hoos geeyo dawlad deegaanka Oromia waxaana si gaar ah loo xasuustaa Oromada in dhulka Soomaalida qaadato Baabili bay qaadatay waligeed bay soo socotay Jinicsani iyo qaadatay magaalada Dirdhaba gacanta ka baxday deegaankii waxa weeye gobolka City bay caqabad ka taagan tahay maantana waxaad moodaa waliba arintan markii ilgaar lagu fiiriyay waxay muujinaysaa Ethiopia maadaama uu socoto dhinacan iyo Saylac oo ah meesha ay rabto in Soomaaliya
badda ka gasho ay sheegtayna inay doonayso halkaas saldhig military ka dhigato inay rabto inay jigjigaantay saa u garamarto gobolka City deegaanka Oromia lagu daro in halkaas ay laga galo oo waxa weeye halka badda ay doonayso Ethiopia inay ka hesho marka waxaad moodaa istiraatiijiyad dheer oo Soomaalidu isu ku baraarugsaneen qoladan Soomaalida deegaanka ka talisan ay u fududeynayaan inuu ka socdo deegaanka Soomaalida wata sayid faaye dhul balaarsiga ay wadaan canfarta iyo Oromadu muddo waa u soo jiitamayay dadku waxay isweydiinayaan ma hab dawladeed ama hab mashaariiceed ay dhulkaasi ku qaadanayaan mise waxa ay ku beerayaan dad ay ku beerayaan sida Oromada oo kale in meesha lagu beero deegaamiis ay ka sameystaan ama canfarta oo kale ma hab noocaas oo kale ay dhulkiisaas ugu shaqeeyaan mise waa mashaariic la fulinayo oo iyagu ay garwadeen ka yihiin baasha waa laba aragtiyood meesha yaalo aragti horta dadka dhulka degan inta badan waa dad Soomaali ah laakiin Soomaalidu maadaama nidaamka qabaa'ilka aad ugu fududahay xamaasadda iyo cadiifada oo jiraan qabaa'ilo Soomaalida laga yaabo inay caqabado ama culays ka tirsanaan dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida waxaa jirta istiraatiijiyad la qaatay oo ah in dadkaasi loo sheego in haddii deegaanka Soomaalida ay ka tanaasulaan oo ay galaan deegaanka Oromia inay galhayaan nimco iyo barwaaqo iyo jannadii cadiifadna lagu abuurayo leeyahay idinka deegaanka Soomaalida waxa la idin kama ogolo heer hebelo dhinaca isku haystaan intaas xil bay haystaan laakiin idinka waxa ma haystaan sida daraadeed fursad aad meeshan ka weydeen deegaanka Oromia la ka siinaya halka marka waxa la soo saaraya odayaal koofiyad baclayaala oo dhaqan sheeganayo oo doonayo inay ka baxaan deegaanka Soomaalida galaan deegaanka Oromia iyaga oo leh xuquuq baa naga maqan waa istiraatiijiyad number 1 number 2 in la sameeyo aragti ah dadka gobolkan degan iyo dadkan gobolka degan oo qaybna Oromada qaybna Soomaalida waa dad isku jinsi ah asalkiina isku meel baan ka soo jeednay inaad meeshan kamid ahaataan waxa ka sii fiicnayd inaad xankan u soo gudubtaan waa arinta saddexaad oo ah arinta mashaariicda Oromadu waxaad moodaa deegaanada gudaheeda mashaariicda ka wado iyo deegaanada xuduudka la dawladda deegaanka Soomaalida mashaariic ka wado inay ka xog badan yihiin xuduudda deegaanada ku yaalo mashaariicda ka wado mashaariicdana in yaani qofka loo sameeyay ilxaax oo biixidhan loo sameeynayo jid loo sameeynayo telecommunication la geynayo يعني فرصة فرا بدن الدولية إن ماشي لجينا مركي لجيه مركا لبدأ تولي اسكو حكت مركي من هرمات بدن لجارسيو من وحاول هرمر وسنكتشرين إن تي هرمر كر بدن لجارسي أنا ذاك حاجة قط ضحيان وحكى له شرتو إن باشو أرين كله أو أيضا عقبضة أو قرضنا الصومالي ديجان كتلس أنت بدن إيكش قيان ديجان مدى حدودها كويا الدولة ديجان كصومالي ده متشران وح مشاريع أما هرمر إنه اللي جيه بالشوين كهالكاس يكون قرنا مركا تسيو فيرسو إن أي ديجان كصومالي ده كعران أورمض وقلان وحاسبه حكومة الدولة ديجان كتلس أون iyadu ka shaqeynaynin dadka sida ku kasban lahayd sababta maanta ninka degan jinicsani haddii yani uu arki lahaa isagoo dawladda matalaad kule isagoo jidkii laamiga la gaarsiinayo isagoo telecommunication la gaarsiinayo isagoo biyo xidhanada la gaarsiinayo isagoo nidaamkii dawladeed u baahnaayo dhan caafimaadka helay waxbarashada helay hadduu heli lahaa marnaba Oromo uma dudeen qofka Soomaaliga ana qofka walaalka ka muusan jeclaadin qoomiyad kale waxyaabaha keenaya marka denialka dadka lagu sameeynayo ayaa kamid tahay dawladdan waxaad moodaa mar walba madaxweyne kasto imaado in uu focus ka saarayo gobolka ka soo jeedo oo waxa weeye uu san focus ka saaraynin shacabka kale deegaanka ku dhaqan waliba gobolka uu ka soo jeedo markan ku leeyahay hada xataa dhankan xuduudaha Soomaaliya markaad fiiriso oo deegaanka Soomaaliya xuduudaha u leeyahay waa meelaha ugu liito dhinaca horumarka jid male waxbarasho male caafimaad male isku socod male hada waxa jira degmooyin waaweyn tusaale ahaan hada buu hodlo kale wax dhulka ay ku fadhida waxa la dhahaa waa dhulka ugu weyn dawladda deegaanka Soomaalida waa qabale ka weyn magaalooyin waaweyn oo gobol ah oo deegaanka ku yaalo iyo buu hodlo ka weynta nidaamkii dawladeedna lama gaarsiin horumarkii loo baahnaa lama gaarsiin shacabka marka meeshaas ku dhaqan maanta haday dhahan anagoo ma baahneen inaan deegaanka Soomaalida ka baaqisha ka mid noqono oo qori baan qaadanaynaa waan dagaalamaynaa waxaan ku beeranaa maamulka SSC halka ku yaalo xaq bay u leeyihiin sababtoo nidaamkii dawladda lama gaarsiinay يعني وامدقموينك مركا أعتقد أدريميسو إن الديجان كصومالي اللي بتجبرك مجالوينك وين عاصمتها إن اللي يجين مركا كلية كم كابنو يعني جوابها إن حدودها حتى قبل كافلي روكله بدن كيسة ما الله كلا صعدة ملها ليسكم جدبو وحبر الشام مله عافماد مله نورال مله حكومتنا معنا كستوى تكتب إحنا كمان فلوس ضدك هذا يبردها كل الجارهن وبهرنا ويكون بيرها يعني هذا يدهن أورميان وبهرنا وهذا يعني صوبته قفكو وحود دولة ما تكون شعلان كرو وإنه هلا هرمر يسوي شيء ده شنو عدولته بس هدي وتيوايو وحي كلا بدل كده أيوة أنت بدل هذين يا تاس أمريكا وحسابه إذا إن دك الصوماليين كعران ديجان كذو عران ديجان نكر دوان وحن أرجعني حرد إيكولوجي أو علنكي أو رمضان اللي جتهاجي ما أنت وحن أركنا ميل 2 كيلومتر وجرته مقالدي جيكا أو مشاريع رمضان أهل جفلينيو محل جدبون سياسيين Soomaalida ee dawlad deegaanka iyagu maxaa qorshe ay u hayaan dadka deegaanadaasi jooga horta qolada Soomaalida madaxda ah inta badan qorshe ay hayaan ma jirto istiraatiijiyad ay hayaan ma jirto sababtoo ah
decision makers ma ah awoodna oo ma laha tusaale waxaa kugu filan aadan faarax oo ah madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo inta badan ka mid ah la taliyayaasha Abiy Ahmed soo noqday afhayeenka iisha waxa weeye golaha federationka Ethiopia awoodda federaalka Addis Ababa uu ku leeyahay aysan xadidnayn dadkii uu ka soo jeeday galbeedka city taagnaa 300 qof ilaa 200 qof hal maalin la xasuuqay in ka badan 15,000 ilaa 7,000 oo ciidan liyo booliska yaa ku dhamaaday shacabka laga soo barakiciyay 250 kilomitir baa deegaanka Soomaaliya la soo galay waligii iyo alihii isha dhibaatada meeshaas ka jirto dawlad federaalna ma horgeynin wixii ay kaga bixi lahayn dhibaatadana ma soo hordhigin qoladan marka jigjiga joogto haddii kii federaalka joogo saaya qoladan jigjiga joogto saameyn ay wax ku bedelaan oo ay waxa weey wax kaga hortagaan ma ay laha Mustafa waxyaabaha markuu imaado dadka la soo dhaxgalay waxa kamid ah taaka dhul ah kama tanaazulayno balse maanta waxaad moodaa taaka iska daaya taakooyin ka badan ama kilomitir in la qaadanayo marka door iyagu ay leeyihiin ma jirto laakiin waxaan u baaqahayaa oo yaani fariinteeda rabaa inaan ku gaarsiiyo bulshada Soomaaliya iyaguba war kani waa dhul lama bixiyo waxyaabaha la bixiyo ee dib laga helo dhulka mid ma aha shalay jinacsanay baabili baa si tartiib la fahamsanayn ku tagay maanta haday ku tagaan jijeel qaadan doona shalay dir dhaba bilaash ku tagtay maanta hadaan tan laga hortagina wax dhagax buuriyo waxa la sii qaadan doona deegaanka kale waliba heer waxa la gaarsiin doona dadka Soomaalida gobollo badan ay codsan in deegaanka Soomaaliya kaga baxaan deegaanka Oromia ku biiraan marka istiraatiijiyada ballaaran ee jirto waxa laga hortagi karaa kaliya midnimo Soomaaliyeed isu damqasho Soomaaliyeed iyo deegaanadan oo la gaarsiiyo adeegii dawladnimo ay u baahnayeen inta kaliya laga hortagi karaa waa tahay madax badan ayaa soo maray dawladda deegaanka labadii madaxweyne ugu dambeeyay hadii aan soo qabano Cabdi Maxamed Umar iyo Mustafa dhul balaarsigan ma mid hadda bilowda yaas u fiican ay isleedahay xilligaas ee madaxweynahaas joogay dhulkaas lama taaban jirin aad isleedahay horta labada madaxweyne ugu nasiib ku xumay mid wuxuu ku soo hagaagay TPLF oo ahayd qole aad u gacan adag Soomaalida gacan bidixaynaysay dhibaato ku haysay deegaankoodan inay ka barakiciso mar walba ka shaqeynaysa xilliga dhul balaarsiga uu socdayo Tigreegu iyagu dhul ay qaadanayeen ma jirin laakiin waxay fursad siin hayeen Oromadii oo caasimada Addis Ababa iska lahayd ahaydna qowmiyadda ugu xoog badan ee Ethiopia garabkan ay ku hayeen taa marka waxay sababtay in yaani dhul badan laga qaato iyo Cabdi Ilay oo lahayn damiir iyo dadnimo Soomaaliyeed wax lagu difaaco ogeyda ninkii waxa weeye waxa ogeyd sameynaya qudunka kan hadda yimaadayna Oromadu fursad waxay u heshay inay dhahdo kursiga annaga ku keenay annagana xilliga rabna ka qaadan karo marka waa inaad noo fududeyso wax walba doonayn waana sababta keenaysa in jigjiga duleedkeeda maanta degmana laga sameeyo jidad laamiyana laga dhiso dhaamamna laga dhiso waliba dhaamamka hadalka waan ka hor dhaafay laba khatar bay leeyihiin khatar waa khatarta koobaad oo markay buuxsamaanay soo butaacaan magaalada jigjiga guriyada way qaadayaan maadaama doox ku tahay magaaladu khatarna waa khatarta labaad oo biyaha ka imaado dooxan marar waxay tagaan gobolada Jarar iyo Qorraxay sida darteed biyahan hadii waxa weeye la xidho goboladaasi biyo yaraan fara badan yaa ka imaan doona sababta xilliga roobka oo yaraan 2 bilood ama bil busocon jiray togi marka faafan iyo Jarar marka isku dara socon jiray intaas dooxan markii la xidho biyihiisina way yaraanayaan strategically marka waa qorshe deegaanka Soomaalida uu go'doon uu ku jiro marka Mustafa iyo Cabdi Ilay inta badan isma dhaafan xagga dhulqaadka isma dhaamaan in kastoo de Mustafa isagu ku dagaalamay oo lagu xasuusto ku amaanan yahay in uu mooyaale waqti ku bixiyo ku dagaalamay ilaa de Oromadu ay ka qurgo'do ama waxa weeye ay ka samirto inay magaaladii mooyaale si tartiib ku qaadato iyo canfarta oo waxa weeye strategically dagaalka khaldanaade laakiin uu dadaalay marka Cabdi lama barbar dhigi karo oo yar damiir dhama laakiin waxaad moodaa damiirkiisu xagga Oromada inuu uga jilicsan yahay oo janjeero uga jilicsan yahay maadaama ay kursiga keeneen taasaan caqabada keenayso wata ugu dambeyn maadaama taawuriye inta badan ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo bariga Afrika aragtidaada sidee loogu hortagi karaa ayaa isleedahay dhul balaarsigan ay wadaan canfarta iyo Oromada saddex shay ma lagu hortagi karaa dadka xuduudaha degan oo la gaarsiiyo adeeg dawladeed u baahnayeen 100% ما حتى 70% ما 100% dhaqaalaha ku baxaya gobolada dhexe deegaanka in laga raro oo la geeyo gobolada xuduudka ama ha noqoto Soomaaliya ama ha noqoto Djibouti ama ha noqoto Ethiopia kale ama ha noqoto Kenya istiraatiijiyada noocaas la qaato oo caafimaadka la gaarsiiyo biyaha la gaarsiiyo jidadka la gaarsiiyo horumarkii oo dhan la gaarsiiyo asaaskii la gaarsiiyo meelaha degmooyinka u qalmo degmo laga dhigo
hadda waxa weeye hadda dhinacan buuhodloo kale iyo dhinaca shilaaboo kale markaad sii fiiriso dhulal fara badanoo waxaa jiro yacni ugu yaraan 3 degmo 4 degmo geli lahayn laakiin maanta aan ahayn waxaa ka mid a qabalaha laasacaanood oo hadda waa ka dhawaa tubka lagu dhacayaa ka mid a oo dhibaatada ka taagnayd in istaraatiijika dhulkaas kore nidaamka dowladda la gaarsiiyo tan labaad in la soo jiito bulshada Soomaaliya degan oo nidaamka dawliga laga qayb geliyo shaqaalihii dawladda lagu daro iyaga dad matalo oo mansab kula deegaanka la geeyo meesha gobolada dhexe wasiirada ugu awood badan la geeni lahaa in la geeyo gobolada xuduudka si كل قفكم وقف شخص شقيسناي عندنا واحد متر بيلا واحد متر قبل واحد متر حتى أنا كو وسيرنا بدله بيشيء وحكمة تبيله هو وسير بدن دجانك ما كلا فيدي ومع المدحويني وحنا نسكو صدر حدنا واحد ناقب تانو يعني ما أنت لنا وحاسي فليان ما شرته واحد أنت مرك يضو بيلها صومالية حدودها دجن لجارسية أديك الدولات مثلادين أيق الله سيو صفاي واركان إن يكيهن ستيك هولدرز دجانك صوماليدا أو يصير أوجبه هنعيد كلام qodobka saddexaad dadka in la soo dhaweysto loo muujiyo Soomaalinimo loo muujiyo in dalka iyo deegaanka iyaga wax ku leeyihiin loo muujiyo wadaniyad ciidanka ugu farban iyaga laga qoro hadda ragga saraakiisha dalacay maanta waxa weeye darajooyin kale markaad fiiriso hal nin oo dhalinyaro xuduud ka imaad kuma jiro dhamaantood gobolada dhexe ka imaadeen gobolada gudaha ku yaalo hundaha ku yaalo ee heerkaygu ka soo jeeday ka imaadeen taana dan oo ma bulshada Soomaaliyeed waxa dan waa in adeega dawladda si sax loo gaarsiiyo marka inta kaliya laga gudbi karaa caqabadaha in dhulka la qaataa waa tahay aad baa mahadsan tahay سيد فاهي أيها داودة أركتدا دول بلارسيجان يودان عنفرتي أورمدا سيدا لوجو هرتي كرا أياد سليد هاي مقوم وقتها إن مدحونها دول ديجان كسوم هذا مصطفى عجر وحكا قبان كرو به أركتها الكاسوسه كسولفها وما سنتي صاحبي